السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونحسن يا أهلا وسهلا كسر هذا المقال كان عصب بشي فبراير أفر كذا أيا لا أقون صدي إن تهمان بتشعلق أدونكا فالنتينس داي وحان لا يسود دراسة لامة ووحي قرح بدن يهديدا قالي أو إستاف صدان لما نيش إسجعل هذا المحيط وجديدا كدن بيسا مناسبة يحفظ لهم مع مصممين تخلقعلك يحيسا جعلك markay dhagaha ku soo dhacaan ereyga Valentines waxaad markiiba dareemaysaa in magacaan macnaha uu dhamayo inuu ka soo jeedo asal ahaan diinta Kristiyaanka ama caadooyinka hore ee Roomaanka haddaba inta aan daha ka rogin inaan fasiro macnaha jacaylka bal aan isweydiino kuma ahaa Valentines qarnigii 13aad dhalashada Nabi Ciise kadib alayhi salaatu wasalaam waxaa jiray boqor la oran jiray Claudius oo ka talin jiray dalka Talyaaniga ayaa wuxuu amar ku siiyay dhalinyarada inaysan guursan karin kuwaas oo ahaa ciidan uu ku ilaashado awoodiisa waqtigaas ayaa ninka Valentines ka hor yimid awaamirta boqorka wuxuuna bilaabay inuu si hoos u guursado dumar fara badan haddaba markii soo shacbaxday guurkii qarsoodiga ahaa ee Valentines waxa uu boqorka amray in loo dhaadhiciyo xabsiga lana daldalo haddaba sida la soo wariyay Valentines waxa uu ku dhacay xilligii uu xabsiga ku jiray jacayl xad dhaaf ah oo uu jeclaaday gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badneed taasoo ahayd gabadh uu dhalay ninkii xabsiga waagaas xukumi jiray iyadoo soo booqatay waqtigii uu xabsiga ku jiray haddaba waraaqad jacayl xambaarsan oo ku saxiixnaa Valentines kadib markii la daldalay ayaa laga helay qolkii uu ku xirnaa taas uu halku dhigeeda uga dhigay ka socota Valentineskaagi wixii maantaas ka dambeeyay si loo xuso sanad guuradii ka soo wareegatay markii la daldalay Valentines oo ku beegneed 14 bisha Febraayo 221 sano dhimashada Nabi Ciise alayhi salaam kadib ayaa la go'aansay in la xuso maalintan oo kale waxa bayaan hadalkeen ku daalin daawadayaal anigu ma yahay dhakhtarkii jacaylka laakiin jacaylku waa shay qaali ah oo ay ku dhisan tahay jiritaanka nolosheena jacaylka anaga u baahan isaga nooma baahna ereyga jacaylka la dhaho Ingiriis ahaan love oo ka kooban 4 xarfood L oo u dhiganta lack of pressure O oo u dhiganta ocean of sad V oo u dhiganta valley of death E oo u dhiganta end of life haddaba daawadayaal ereyada soo sheegnaa diana Soomaalihan u bedelno lack of pressure oo u dhiganta farax la'aan ocean of sad oo u dhiganta badda murugada valley of death oo u dhiganta dooxa dhimashada end of life oo u dhiganta dhamaadka nolosha isla markaana waxaad dareemi kartaa micnaha ay xambaarsan tahay ereyadaas dhanka af Soomaaliga haddii fasiraad lagu sameeyo micnaha jacaylka wuxuu noqonayaa sidatan jaada u dhiganta jawhar aad u dhiganta amakaag aad u dhiganta calaacal aad markale u dhiganta anfariir yaad u dhiganta yaad la u dhiganta lul haddaba daawadayaal waad aragtaa qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay jacaylka marba hadduu yahay jawhar iyo lul waxaad aragtaa dhibaatooyinkiisa marna haddii lagu sheegay amakaag calaacal yaad iyo anfariir waxaad dareemaysaa murugadiisa marka laga faaloodo arrimaha jacaylka waxaa dhacda doodo aan xal loo helin inta badan dadka baa waxa aaminsan inuu jacaylku yahay laba qof lamaano cishq iyo balan isla wadaagay ruux baa ruuxa kale noloshiisa ku qanacsan tahay una hayo hami joogto ah dareen xad dhaaf iyo firfircooni joogto ah una dareemo markuu ruuxdaas arko isdana wadaagaan bogta xanuunaysa una baahan inay wada daaweeyaan culimada jacaylka ka faalooda ayaa isku raacay in qofka la jecel yahay ugu qaalisan yahay dadka intiisa kale taasi waxay ku tusaysaa in ruuxa wax jecel uu ugu qaalisan yahay naftiisa midda uu jecel yahay kolkuu arageeda iyo muuqeeda waayana ku abuurmaysa fakar xad dhaaf ah lamaanaha iscaashaqa waxay had jeer dhex dabaashaan mawjado fikir ah maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii xoogaysta xiisaha isku qabaan waxayna mar walba ku jiraan dareen farxadeed iyo damaashaad joogto ah faa'iido khasaare ayuu leeyahay jacaylka laakiin waxyaalada ugu daran jacaylka keeno waa marka ugu horeysay aad dareentid inuu ku taabtay talaalkii jacaylka waxaad dareemaysaa xanuuno cusub oo kusoo kordha jirkaaga jirkoo ku jaban niyad xumi raashinka aad ka sootid fakar xad dhaaf ah iyo isdareen la'aanta jirkaaga laga dareemo daawade waa astaamaha jacaylka ee hawlwelin naftaadana khayr u sheeg markaad ruux jeclaato oo isna ku ogeyn inaad dunida ku nooshahay jacaylka noocaas waa midka ugu khatarsan inaad naftaada halis gelisid amaba aad dhaawac isku geysid mana ogaanaysid goortaas ficilada samaysay sababtoo ah miirkaaga iyo maankaaga ayaa maqan dhakhtar ku daaweyn karo ma jiro ilaa aad heshid ruuxda aad jeclaatay haddaba daawada haddii xaaladahan oo kale kula soo gudboonaadaan si aad naftaada u badbaadisid waa inaad iska yaraysaa fikirka badan naftaadana mashquulisaa haddii aad taqaanid magaalada uu ku sugan yahay ruuxa aad caashaqday waa inaad soo bandhigtaa dareenkaaga kana fogow daawashada aflaanta jacaylka waayo ruuxa wax jecel waa u laabkacaa waxaana ku saa'iida murugada iyo boholyowga nolosha sidaas ah ee dareenka xun leh wuxuu ruuxu ku jiraa in muddo ah mana sahlan sida looga bixi karo haddii aan ilaa qofkaas dudurka jacaylka ka waraabin meel kale jacaylku waa cudur daawiisuna waa qofkaad caashaqday oo kula beera ubax jacaylka nasiib daro dhalinyarada Soomaaliyeed jacaylka waxay ka fahmeen qalad waxaana loo tarjumaa si aad u foolxun oo ka mamnuuc ah xuquuqda jacaylka
waxayna u isticmaalaan jacaylka hab qaldan sida iyagoo gabadha ama wiilka ku raacaya lacagta, quruxda, qabyaalada iyo dano gaar ah ilaa ay sababtay in maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay aaminsan jacaylku inuu yahay dhalanteed ama ruwaayad. kuwa sidaas aaminsanaa waa cadawga jacaylka. jacaylku waa dahab aan la iibsan karin, taasina waxaa ku cadeynaysa nacaybka in la iibsan karo laakiin jacaylka aan la iibsan karin. astaamaha lagu garto inuu ku taabtay talaalkii jacaylka ayaa waxaa ka mid ah fakar xad dhaaf ah, walwal iyo walbahaar, boholyow, dhidid, riyo iyo qarow fara badan, cunada aad ka fogaatid, isfiilito iyo xanaaq fara badan, hadalka oo aad ibsatid, وهمون قبيل أرجع أمورها دعوشة أفلامت الشعلك يو أقرنت بوقت الشعلك جيل كاج أو آذن دليلين يكون بدن هالك عك سوكوي بكرين ما دام مقالهم سوكوي بكرين أرمى عاشق أكو سبسن أكو أوران روح آذن شعلك وقبيل وأنكو شعله سياد نفتي سبات وجمع ويلسو ما أنت شعلك أدونك ومال لا كرامية ودمر كريستيانك بس الدنيا مسلم كجمع قدرية وحم مقالك أبو فايدين يا داوداش السير وفهمان معناها ما أنت لو جمع قدري فانتينز داي aad ayaad u mahadsantiin daawada fadlan ugu shubtaan soo raac like na saar lana wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iidaan Çiksiler kadın teki vişten sizin neden dim neydi derdimden başka عشقيgan usoo jabnay maxaa laylimle wadada soo wada marnay rafaa laylimle hanni maan arage hadi ka qurxan hanni maan arage hadi ka qurxan inanti ma yarta ma inanti ma yarta ma wa quruxdi wa qofe wallo wada bogay wa quruxdi